Waan ku salaamay daawaday ku soo dhaw muuqaalkan maanta oo kaga hadli doono wadamada bedelay caasimadahooda. Wadanka koowaad ee bedelay caasimadiisa isla markaana muuqaalkan aan ku soo qaadan doonaa waa wadanka Nigeria. Nigeria waa wadan ka mid ah wadamada Afrika isla markaana wadanka ugu tirada badan la qaaradda Afrika oo dhan. Haddaba caasimadiisu imiga waa Abuja, balse caasimadii hore waxay ahayd Lagos. Lagos waxay ahayd caasimada Nigeria ka hor inta aan Abuja loo bedelin. inkastoo ay ahayd magaalada ugu dadka badan. Lagos ma ahayn mid ku habboon inay ahaato magaalo madax, maxaa yeelay waxay ahayd mid ciriiriya isla markaana ah magaalo xasmad badan. Intaasi waxa u dheeraa inay ahayd magaalo aad u kulul. Haddaba siyaasiyiinta ayaa bilaabay inay sameeyaan magaalo cusub. Taasi waxay noqotay magaalada Abuja oo 300 meel u jirta caasimadii hore ee Lagos. Haddaba 1991 ayaa wadanka Nigeria go'aansaday in caasimadiisa cusub ka dhigto magaalada Abuja. Wadanka labaad ee soo qaadan doona waa wadanka Brazil. Caasimada wadanka hadda Brazil waa Brasilia, halka 1960 ay ahayd caasimada Rio de Janeiro. waxaana lagu xasuustaa magaaladan Rio de Janeiro koobkii lagu qabtay Brazil 1960 sidaan hore u soo sheegnay. caasimada wadanka Brazil loo soo bedelay Brasilia, oo caasimadii hore waxay ahayd Rio de Janeiro. wadanka saddexaad ee soo qaadan doonaa waa wadanka Mareykanka. Congress-ka Mareykanka ayaa shir ku yeeshay 8 magaalo oo kala duwan oo ay ku jiraan New York, Baltimore. Wadanka saddexaad ee soo qaadan doonaa waa wadanka Mareykanka. 1800 ayaa caasimad cusub loo sameeyay wadanka Mareykanka. Caasimada cusub waxaa laga dhigay Washington DC. sababta ugu weyn ee Washington DC loo doortay waa in ay noqotay caasimada cusub ee Mareykanka ayaa ahayd goobta ay aad u meel dhex u ah gobolada waqooyi iyo gobolada koonfureed oo dhan dhaqaale la wadaaga. markii hore caasimada wadanku waxay ahayd New York, oo waxay ahayd iyada laftirkeedu mid laga soo raray 1785 ilaa 1790 ayay ahayd caasimada wadanka. wadanka afraad waxa uu noqon doonaa Pakistan. 1967 ayaa laga soo bedelay Karachi inay ahayd caasimad isla markaana waxaa loo soo bedelay Islamabad.